sida aan maalin dhaweyd sheegayba xariga deer la yidhaa waxa la fursada ama ogolaanshaa kama haysto inuu kusoo dego ilaa iminka dekeda berbera laakiin marka soo baxay waxa weeye marka wuxuu soo galay badda Somaliland isagoo aan ogolaansho hore aan ka haysan xukuumadda Somaliland sidaa awgeed bay ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland ay ka howlgaleen markabkana ay u sheegeen inuu ku noqdo biyaha caalamiga ee loo ogol yahay intaan ku sheegi karay waxa weeye markabkaasi wuxuu soo galay badda Somaliland iyadoo aanay xukuumadda Djibouti aanay nala soo socodsiin wax waran aanay naga soo siin iminkana waan ka wada xiriirnay wasaaradda noodhigayga wasaaradda isgaarsiinta oo kaafinta Djibouti waxaan ka wada hadlaynaa sidii ay mar dambe aanay u dhacdeen hawl noocaas oo kale waxaa jira in xadhiga qudhiisa ganacsato reer Somaliland ay qayb ka yihiin oo ay wax ku leeyihiin doonayeen inay internetka keenaan Somaliland laakiin dhibtu ay tahay xagga xukuumaddiina oo aydan ogolayn in ganacsi xorihi uu meesha ka jiro oo aad cid qura u xidheen ganacsiga internetka arrinta maxaad kaga jawaabaysaa sida la wada ogyahay ganacsiga Somaliland wuxuu ku dheesan yahay waxa la yiraahdo suuqa xorta cid walba loo ogol yahay inay keento adeega ama badeecada ay doonayso si xor ah waxaa jiray in 2009 bishii 8 ay wasaaraddu heshiis la gashay shirkad kamida shirkadaha waddanka jira in ay keento isla markaana dhigto xadkaha keebalka ee badda iyo dhulka hoos mara heshiiskaas markii dambena baarlamaanku ansixiyay oo ku jiro ilaa 3 qodob ka hadlaya xeerka isgaarsiinta oo ay ku jirto marka anaga ixtiraamayna heshiiska hore iyo xeerka uu baarlamaanka ansixiyay yani heshiiskii hore loola galay shirkadda wadaniga sida loo ixtiraamayna laakiin wasaarad ahaan maxaa siyaasadiinu ay qeexaysaa ee ah in aad ku maaraysaan ganacsiga noocaasa mar haddii arrinkaa kale aad sheegtay uu yahay heshiis xukuumaddu la gashay shirkad wadaniya oo baarlamaanku ansixiyey waxaa nooga yaala wasaarad ahaan siyaasad ah in la mideeyo keenista iyo maalgashiga xadkaha keebalka dalka oo shirkad waliba aanay keenin xadhig iyadoo gaara ee aanu isu geyno shirkadaha dowladduna qayb ay ka noqoto oo iminkaba waxaa noo socota hawl aan wadahadal kula jirno 3 shirkadood ugu waaweyn isgaarsiinta dalka oo ah Sam Cable iyo Somtel iyo Telesom iyo dowladda afartaa dhinac waxay ku midoobi doonaan waxa la yiraahdo terrestrial cable oo ah heshiis xadhigga dhulka hoos mara sidoo kalena waxaan iyadana gacanta ku haynaa sharcigii loogu ogolaan lahaa in xadkaha dibadda ka imanaya ay ku soo xidhmaan dekeda berbera marka cidna uma xidhna waa heshiis iyo liisan iyo ruqsad ciddii u haysata ay keeni karaysa unbaa hawshaa qaban karta ciddii kale aan haysan ruqsadaasina waa inay soo marto sida sharcigu dhigayo isla markaana ay u hoggaansato shuruudaha iyo waajibaadka looga baahan yahay haddii arrintu sidaa tahay wasiirka dhigaaga ee reer Djibouti uu sheegay in arrinta gebigeedaba si khaldan loo fahmay maxaa keenay bay kula tahay in arrinta sidaa khaldan loo fahmo xog buuxda iyo macluumaad buuxa oo labadiina dhinac midba ka iman ayaa sababta la saari karaa inta sheegaya waxa ahayd markii hore ama bilowgii marka soo dhaaqay Djibouti oo soo galay badda Somaliland laakiin wixii inta ka dambeeyay labadayda wasaaradda wada xiriirnay iminkana kulay isku aragti baan nahay iyaga waxaan ka doonay way garanayaan iyaga laftigooduna xadhigu halku socdo iyo maaragtay waxyaabaha u yaala shuruucda Somaliland way og yihiin marka isfahanaagan anu hore u sheegay waxa weeye waa bilowgii hore ee markuu soo dhaqaaqay dowladuna waxay ilaaliyaan masaalixda iyo danaha ummadaha ay matalaan marka waxaan ka hadlaynaa waa heer wasaaradeed weeye wasiirka wada xiriirnay 3 maalmood oo dambeeyayna hawshan waan ka wada xiriireynay iminkana kolley arrinka xalkiisana gacantaan ku hayn waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi wasiirka Somaliland ee arrimaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dhanka kale wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Djibouti Ridwan Cabdullaahi oo isna Axmed Nagaasho la xiriiray ayaa sheegaya in arrintaasi sababteedu ahayd isfahan waa dhacay ee aanu markabkaasi kuba socon berbera waxa weeyaan xadhigan waxa la yiraahdaa deer baa la yiraahdaa xadhigan waa xadhig telecommunication-ka xadhigan wuxuu ku socdaa Boosaaso ilaa Muqdisho tagi doonaa Muqdisho uu dhaafi doonaa wuxuu tagi doonaa Mombasa xadhigan uu garan maraya uuna dhinacan badana economic zone ku dhex maraya oo berbera haba yaraatee ma tagayo Somaliland haba yaraatee ma tagayo laakiin xogtaanu haynaa waxay tibaaxaysaa inuu markabku isku dayay inuu berbera gaadho dabeetana xadhiga halka looga tallaalo Somaliland oo internetka uu xadhiga deer la yiraahdo sheegaysaa uu sido isagana la gaarsiiyo sida muuqatana
cid idinka codsatay oo aad heshiiskaa la gasheen ma jirto xukuumadda somalilandna waxay sheegtay inaanu xadhiggaas marnaba aydan ka wada hadlin bal hadda halkaa faahfaahay waxa weeyaan waa khalad magaran si xun baa loo fahmay xadhigga haba yaraatee kuma soo dhacayo berbera somaliland ma imanayo walaa somaliland walaa berbera midtoona ma imanayo ma garatay zaani buu u dhaafeeyaa oo xuduudkan waxaa la yidhaahaa biyahan caalamiga ayuu dhex socdaa xadhkihii oo dhan ay adduunka wada dhex marayaan zaani isaga dhex maraya laakiin waxaad sheegtay wasiir in uu khalad faham dhacay oo si khaldan loo fahmay warka markaa khaladkaa fahmay ma xaggiinaan war cad oo buuxa ka soo bixin maxaa keenay in si khaldan loo fahmo tallaabada wallahi khaladku dadku horta waa bini-aadanku nina suu yidhi nina suu qaaday baa la idhaha magaran xilligaa waxa weeyaan basaaso u gara marayaa ee ma galayo somaliland u gara marayaa ee kuma dhaadhacayo xilligaa dadku si xun bay u fahmay baan u malinayaa rag baa si xun u fahmay oo mooday in xilligii berbele la yidhi inuu soo dhaadhacayo somaliland kusoo dhaadhacayo laakiin xogta kaleenu haynaa waxa weeyaan xogo kale oo aanu helayno ila lagu kalsoonaan karo aanu ka helaynaa waxay tibaaxayaan in wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti doonayo inuu socdaal lagu baxo hargeysa uu arrimaha kala hadlo xukuumadda halkaa ka jirta marka hadalkaaga iyo xogtaasi miyaanay isa seeganayn oo aan la moodin inaydaan ilaa haatan waxba caddaynayn haddaad reer jabuuti tihiin may wax dhib lama wasiirkan arrimaha gudaha arrinka lagu tegaya somaliland arrinka luu u socdaa wasiirkasan arrimaha gudaha xadhigga arrinkiisa uma socdo arrinka xadhiggiisu aniyo ninkan wasiirkan warfaafinta cabdulweli ayaa is og waan u macneeyey cabdiweliba waa ki ka sheegay tvga somaliland waa ki ka sheegay ee yidhi xadhiggan haba yaraateena ma khuseeya annaka badduu mari doonaa badda caalamiguu marayaa badda maad aragtay xadhkaha kale adduunku maraan oo dhan buu marayaa oo uuna gaara maraya waa ki yidhi xilligaa inaad waxaan u malaynayaa si xun baa loo fahmay waxaan doonaya inaan ka qaado maad aragtay fahmaadan inaan la ogaado inuu xadhiggaasi zaan u baxayo basaaso tegayo uu muqdisho ka dhaadhici doono insha allah ilamaayo mombasa somaliland haba yaraatee xadhiggaa ma galayo walaalka